قبدا يسوقر عجي بس وحان نير أم حاجي بريسك إيقدر حواجي يا كلها شرما كحناجي wuxuu taagan yahay yaa ku dhahay sharma ka xanaaji waa erayo kulul oo ku soo heysay ama uu ku karbaashay fanaaniintii ayaantan dambe oo isaga oo dhankaas iyo fankiisa ayaantan dambe ama isbuucyadan dambe ka gaabiyay ayaa fanaaniin aad u far badan soo baxday fanaaniintaas oo soo karbaashay ama karbaash far badan u geysatay fanaankan marka sida la wada og yahay ama sida waqtiyadii dambe la wada ogaa in uu dhankaas iyo dalka Zambia oo joogay ama uu ku noolaa meeshaas oo ku qaadanayay waayo aad u qurux badan ama noloshii hore lagu yaqaan oo ahaa dhankaas iyo fankiisa dhankaas iyo magaalada Muqdisho oo ka hawa badashay oo dhankaas iyo Puntland u hawa badashay dhankaas iyo Puntland ka hawa badashay oo dhankaas iyo dalka Zambia oo dhankiisa fanka ama dhankiisa nololeed oo u badashay sidaas la wada ogaa ama ee bulshada ama dhalinyarada badan xiisaysa fankiisa la wada ogaa ee wada ogaayeen ayaa waxa soo baxday fanaaniin aad u fara badan ama oo dhanka raabka kuhaysan dambe waxa aad u soo badanayay ama waayahan dambe aad u soo badanayay dhalinyarada ku heysayso ama ku luuqeynayso dhanka raabka oo dhanka murtida badana ma badno marka waxay soo qaadeen heesa aad u karbaasheen ama fanaankan 100% ku karbaasheen dadka xiiseeyo ama fankiisa fanaankan xiiseeyo way ka xumaadeen ay sababta u soo falcelinaya ama falcelinta degdega oo lagu yaqaan hore in ay qofkii markaas ay isqabtaan ama si degdeg ah oo isla habeen wuxuu sameyn jiray heestii ama waqti fara badan kuma qaadan jirin ilaa 3 hours ilaa 2 hours waxa lagu sameeyaa hees kumbilada oo dhameystiran ilaa 3 daqiiqo ilaa 4 daqiiqo soconayso marka iyadoo sidaas lagu wada bartay ayuu waayahan dambe wuxuu 2 week ama week in uu soo jawaabin ama oo dadkii karbaashi markaas uu u jawaabin marka dhalinyarada badana taas way ka xumaatay ama taasna waxay hoos u dhac ay ka dareemeen marka wuxuu soo qaaday heestan karbaashka ah oo ku karbaashayo fanaaniintii karbaashay fanaaniintaas oo u weynaa Funny Boy sida la ogaa inuu fanaankaas aad markii dambe ugu xadgudbay ama uu hees karbaashay fanaankan laakiin jawaabtii la wada sugayay ama jawaabtii uu falceliyay fanaankan iyo fanaan kale ee isla soo qaadeen heesta ama fanaankaas oo jooga ama dalka Zambia fanaaniintii waqtiyada dambe oo la soo heesayay ama heesa oo kala luuqeynay waa fanaaniin badana joogto ama badana ku nool dalka Zambia waana wax la dhihi karo horumar baahsan waaye in fanaaniid ajaanib xitaa la soo haysto oo dhanka aad ugu horumarsan dhanka fanaaniinta ajaanibta aad bay ugu horumarsan dhanka raabka hadii ay noqoto waana wax lagu farxi karo la dhihi karo waa horumar oo isaga ahaantiisa oo tigsaday